dawladda hoose ee magaalada Muqdisho waxa ay ku dadaashaa sidii loo kordhin lahaa dhismaha magaalada ee looga dhigi lahaa meel caafimaadka dadka u wanaagsan. Jaalasiyaadna waxa uu furay xaafadda Kaaraan kawaan cusub oo laga dhisay halkaasi oo loogu talagalay haweenka Soomaalidu marka ay wax gadanayaan ama hilibka dooranayaan inay si fudud oo wanaagsan wax uga iibsadaan. markii ugu horeysay ayaa magaalada Muqdisho waxa laga dhisay dekad cusub oo si qumaatiya ay maraakiibta dibadda ka timaada ugu soo xidhan karaan. madaxweyne Jaalasiyaad dekadaasi ayuu furay waxaana dekadaasi loogu talagalay in laga dhoofiyo ama laga soo dejiyo alaabada dalku dibadda u diro ama dibadda uga timaada. carwadii 14aad ee caalamiga ahayd oo lagu soo bandhigay xubnaha kala duwan ee kamid ah waxyaabaha uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dalkeena. madaxweyne ku-xigeenka Jaalle Xuseen Kulmiye Afrax ayaa carwadaasi rasmi ahaan u furay halkaasina waxa ku soo dhaweysay gabadha madaxda ka ahayd carwadaasi. dabeetoo Jaalle Kulmiye isaguna khudbad buu halkaasi ka akhriyay oo ku sharxayo ahamiyadda weyn ee carwadu ay u leedahay horumarinta dhaqaalaha dalka. Jaalle Kulmiye dabeetoo waxa uu soo maray meelaha kala gaarka ah ee wax lagu soo bandhigay carwadaasi. subaxdii Oktoobar ay ahayd 1977 waxaa lagu waabariistay farax iyo ididiila cusub sanad guuradii 8aad ee ka soo wareegtay kacaankii Oktoobar 22 Oktoobar 1969 xogayaha guud ee xisbiga hantiwadaaga kacaanka Soomaalidu Jaalle Maxamed Siyaad Barre wuxuu kala qayb galay dadweynihii Soomaaliyeed fantasiyaha maalintaasi u dhacayay. waxaa halkaasi madaxweynaha ku yaacay oo ku soo dhaweeyay habla kamida ubaxa kacaanka Soomaalida. waxaana fantasiyaha lagu bilaabay subaxdaasi ciyaar la yaab leh oo ubaxa kacaanka ay dadweynaha ku soo dhaweeyeen oo ay ku madadaaliyeen. lama kala garto ilmaha iyo ubaxa ay kolba kor u qaadayaan oo geesta ay u qaadaanba ay leedahay macna gooni ah. qayb kale oo ka tirsan ubaxa ayaa iyaguna fagaarahaasi subaxda wacdara ka dhigay waxaana ay masilayeen geesiyada ka tirsan jabhadda xoreynta galbeedka Soomaalida ee gumaysiga amxaaradu uu cagta hoos galiyay siniin iyo siniin iyaga oo muujinaya dhirbaaxooyinka geesiyada jabhaddu ay u geysteen ciidamo ku sheega xukuumadda dadqalka Mingistu ayaa halkaasi waxa ay kor u qaadeen calanka jabhadda.